dalalka Afrika gaar ahaan galbeedka Afrika waxa ka socda kacdoon lagu diidan yahay saamaynta reer galbeedka dhaqaale ahaan iyo military ahaanba ilaa hadda ay xaaladdu ka marayso in wadamada qaarkood ay shaaciyeen inay joojiyeen isticmaalka afka Faransiiska iyagoo ku bedelanaya luqadooda localka sida dalka Burkina Faso oo kale oo go'aankaas gaaray waxaana arrintani walwalka ugu badan ku haysaa dalal uu Faransiisku ugu horeeyo oo faa'iido weyn ku qabay khayraadka dabiiciga ee wadamada Afrika sida uu sheegay wargeyska Financial Times hogaamiyaasha militariga ee dalalka Niger, Burkina Faso iyo Mali ayaa saxiixday toddobaadkan heshiis ay ku noqonayaan isbahaysi xooggan oo u dhigma hal dawlad hogaamiyaasha maamulada military ee Mali, Burkina Faso iyo Niger ayaa shirkoodii ugu horeeyay ee wadajira ku yeeshay caasimadda dalka Niger ee Niamey halkaas oo ay kaga dhawaaqeen inay ku midaysan yihiin saddex dawladood oo gobolka Saaxil ah saddexdan dawladood ayaa shir madaxeedkoodii ugu horeeyay yeeshay tan iyo markii ay xukunka ku qabsadeen afgambi military waxayna soo saareen bayaan wadajira oo ku saabsan axda ay ku dhisayaan midoogooda shirkani waxa uu calaamad u yahay tallaabo go'aaminaysa mustaqbalka waxyaabaha aan wadaagno si wadajira waxaan xoojin doonaa asaaska madaxbannaanidayada dhabta ah iyo damaanad qaadka nabad dhab ah oo aan ku noolaano iyo horumar waara iyadoo loo marayo abuuritaanka isbahaysiga dawladaha Saaxil Confederation hogaamiyaha Burkina Faso Kabtar Ibrahim Traoré ayaa sidaas ka sheegay gabagabadii shirka saddexda dawladood ay yeesheen ayaa u muuqday mid ay hogaamiyaasha ku muujinayeen ka bixitaankooda ururka ECOWAS oo ay saddexda hogaamiye sheegeen in ay ka baxayaan sanadkan 2024 hogaamiyaashan ayaa xukun military kula wareegay dalalka Burkina Faso, Niger iyo Mali afgambiyo isku xigxigay oo dhacay 2020 iyo 2023 haddaba aynu eegno sida uu ku bilowday kacdoonka ka bilowday wadamada galbeedka Afrika laga soo bilaabo 2020 galbeedka qaaradda Afrika waxa ka bilowday kacdoon looga soo horjeeday joogitaanka ciidamada shisheeye ee dalalkaas waxayna dawladuhu dalbanayeen in la baabi'iyo saldhigyada military ee shisheeye ee dalalkaas ku yaala lana saaro ciidamada Faransiiska iyo Mareykanka dadka bilaabay kacdoonka galbeeddiidka waxa ugu horeeyay Kemi Seba oo caan ku ah oo ololaynta midnimada Afrika iyo ka xoroobidda gumaystayaashii hore Kemi Seba oo la hadlayay xilligaas warbaahinta RT ayaa sheegay in sida kaliya ee lagu soo afjari karo awoodda reer galbeedka ee Afrika ay tahay halgan isdaba joog oo midayn kara Afrikaanka wuxuuna intaas ku daray inaan Afrika laga xorayn karin gumaysiga Faransiiska ilaa laga mamnuuco lacagta CFA franc oo ah lacagta laga isticmaalo dalal badan oo Afrikaan ah isbedelada arrintan la xiriira ayaa ka bilowday dalka Mali kadib markii la afgambiyay dawladdii Mali ee ku dhaweyd Faransiiska waxaana talada Mali la wareegay nidaam military oo ka soo horjeeda joogitaanka ciidamada Faransiiska militariga Mali la wareegay ayaa maalmo kadib waxa ay go'aamiyeen in dawladda Faransiisku ciidamadeeda kala baxdo dalka Mali iyagoo ku sababeeyay in dadweynaha Mali ay doonayaan inay madaxbannaanidooda la soo laabtaan oo ay ka xoroobaan farangelin shisheeye ugu dambayn bishii July 10keedii sanadkii 2021 madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku sheegay in dawladdiisu ay albaabada u laabi doonto saldhigyada military ee ay ku lahayd waqooyiga dalka Mali kadib wadahadallo uu la yeeshay madaxda Afrika ayuu Macron ku sheegay in dawladdiisu ay xiri doonto saldhigyadii Kidal, Tazlit iyo Tambukte ee waqooyiga Mali waxaana halkaas ku soo gabagaboobay saamayntii iyo joogitaankii ciidan ee Faransiiska ee dalka Mali isla sanadkii 2023 dalka Niger oo ku yaala galbeedka Afrika waxa ka dhacay afgambi military waxaana talada dalkaas la wareegay nidaam military oo diidan joogitaanka ciidamada Faransiiska ee dalka Niger waxayna markiiba ku dhawaaqeen in dawladda Faransiisku ay si dhaqso ah ciidamadeedu ugala baxdo Niger militariga la wareegay talada Niger tallaabadii koowaad ee ay qaadeen waxay ahayd inay gebi ahaanba joojiyaan uraniumkii iyo dahabkii ay Niger u dhoofin jirtay Faransiiska
waxayna sheegeen inaanay ku sii jirayn adoonnimada Faransiiska. Mas'uuliyiinta militariga Niger ayaa mamnuucay in uraniumka iyo dahabka loo dhoofiyo Faransiiska. Niger waa dalka toddobaad ee ugu wax soo saarka badan adduunka dhanka uraniumka, waxayna ka yihiin 5% wax soo saarka caalamka sida uu sheegay ururka nukleerka adduunka. Warbaahinta Faransiiska ayaa sheegtay in dalkaasi uu ka yahay 15% ilaa 17% uraniumta tabarta laga dhaliyo ee Faransiiska. waxaana arrintaas ku xigtay in laba dowladood oo Afrikaan ay joojiyeen heshiisyadii cashuuraha ee Faransiiska. Dowladaha militarigu maamulo ee Mali iyo Niger ayaa joojiyay 2 heshiis oo horey loola galay Faransiiska oo u oggolaanayay inay la kaashadaan Faransiiska maamulista arrimaha cashuuraha. Labada dal ee galbeedka Afrika ku yaala ee Niger iyo Mali ayaa bayaan ay wadajir u soo saareen ku dhawaaqay go'aankaas. sida lagu sheegay bayaan lagu daabacay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mali, dowladda Mali waxa ay shaacisay inay baabi'isay heshiis 1972 lala galay Faransiiska kaasoo looga gol lahaa in lagaga fogaado cashuurta labalaabka iyo xeerka isdhaafsiga arrimaha cashuuraha kala duwan. Heshiiskan ay Mali iyo Niger meesha ka saareen ayaa dhabarjab weyn ku noqday dhaqaalaha Faransiiska. Dhanka kale, dalka Burkina Faso waxaa xukunka dalkaas la wareegay Kabtan Ibrahim Traoré, wuxuuna qaaday isaguna tallaabo la mid ah dalalkii ka horeeyay ee Mali iyo Niger. Hogaamiyaha Burkina Faso Ibrahim Traoré ayaa amray in Faransiisku ciidamadiisa kala baxo Burkina Faso. maalmo kadib, dowladda Burkina Faso ayaa mamnuucday inay eriday qaar ka mid ah diblomaasiyiintii safaaradda Faransiiska ee Burkina Faso, iyadoo la siiyey 48 saacadood gudahood inay uga baxaan Burkina Faso. dhammaan tallaabooyinka ay qaadeen wadamada dalalka galbeedka Afrika ayaa meesha ka saaraya faragelintii iyo saamayntii Faransiisku ku lahaa dalalka Afrika qaarkood.